Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta igu cusub kuwii horaa ila joogi jiray dhammaantiin waxaa idiin leeyahay kusoo dhawaada xawakey channelkeeda maanta DIY-ga idiin wado waa DIY fudud maasha allah oo guri sharxaan ah sidaa ujeedaanba DIY-gan ayaa rabaa sidaan u sameeyey inaan idiin tuso tan ramadaan kariim ramadaanka ku qoran iyo kulli dhammaantood saddexdooda waa idiin tusayaa so insha allah waxaan rajeynayaa inaa ka faa-idaan wax badan. Canvaskan waxaan kasoo qaaday weelmadka ayaan kasoo gaday waxaan isticmaalay kooladaas waa kooladii marada ah ayaan dhinacyaha kaga dhaajiyay aan kaga xiray adiga maxaa la dhihi jiray because dhaxdaan rabaa inaan ku qoro ramadaan inkastoo ramadaan kariim aan rabay inaan ku qoro ramadaan kariimka uu ii deeqi waayay ramadaan bis ayaan ku qortay soo canvaska hadda waxaa la dhihi jiray markaan dhaxda saa u mariyo hadhow kalar midow aan marinayaa dhaxdiisa si qoraalkan cadaan aan uga dhigo canvasyaha 3 ayaan soo sameeyay saddexda kan haddii aa ujeedaan hadda ka hor ayaan soo sameeyay video kan ka horeeyay hadda ka horna hata maaka video kan ka horeeyay asagoo clip yar ah ayaa idin soo geliyay asagoo noocaasna hadda ka hor waan sameeyay insha allah hadana videogan waa ku arkaysaan anoo sameynaya again wax culus u baahan ma ahan waa wax raqiis ah lacag badan kaaga bixinin canvasyahan hadda qaali ayay noqdeen markii hore raqiis ayay ahaayeen laakiin hadda dadka dhan ayaa soo gadanayo soo saddex kale weyn aan rabay labada dhexdhexaadka waan helay kan weyn kan dhaxda waan helay kan yariiska waan heli waayay soo $3 ayaan kasoo qaatay kaas asagoo wax ku sawiran asagoo falaad asaas ah baan arkay asagoo maxaa la dhihi jiray ku kale u eg waan waayay soo sidaa daraadeeda waxaan soo qaatay ku already wax ku sawiran wax weyn ugu sibraneen hadhow cadaan u baan korka marinayaa si aan sibirka already uu ku jiro maxaa la dhihi jiray ugu tirtiro maxaa la dhihi jiray waka saas ayuu kusoo baxay canvaskii markaan kalarka midow aan mariyay dhaxdii uu qalalay sorry hergabaan qabaa uu qalalay baan ramadaan kusoo qoray marka hore ramadaan kariim ayaan rabay inaan ku qoro laakiin way ii deeqi waysay insha allah inigaa u arkaysaan dhamaadka ramadaan ayaan ku qoray ramadaanka insha allah waa la hagaajinayaa first thing markaa wax qoraysid perfect ma ahan farteydana ka raali ahaada laakiin waan hagaajinaya dhow dhinacyaha marna midow la maraayo marna cadaan la maraayaa insha allah intaa waxaa rabta aa ka helaysid first try haddaa iga far fiican tahay maybe marka hore adiga waxa aa qorto way kuu fiicnaanaysaa laakiin aniga I made mess badan aan sameeyay sida ujeedaan laakiin dhib ma lahan hadhow gadaal midow baa ka dulmaray ka dulmarinaysaa insha allah meesha insha allah hadda sidaan kalarka ugu shibo ayaa idiin tusayaa cadaana haystaa cadaan grey oo gold yar ku dhex jiro black oo sidiisa ah make sure kalarkani inaa biyo yar ku dartid hadday kalarahaada adag yihiin waa inaa dhexdhexaad ah ka dhigtid bibiza in lama rabo adeeg zaaidna lama rabo soo aniga kalarahay way yar adkaayeen soo kulli dhammaantooda biyo yar ayaan kusoo dardaray gold a little bit intuu ii yaalaa waxaan rabaa hadhow markaan kalarka aan ku shibo canvaska korkiisa aan ku shibo ayaan rabaa inaan kor kaga daro koobkana waa koobkii waxa kulli aan iskugu gegeynaya insha allah iniga arki doontaan haddaan wax yar usii socno soo hadda canvaskii wuu ii qalalay heartkaasna anaa kusoo sawiray waxaan jeclaan lahaa inaan xidib ku sawiro laakiinse waan ilooway waxaan iskaga sawiray heartkaas iskaga sawiray soo hadda waxaan sameynaynaa hadhow kalarka markaan canvaska aan ku shibayno waxaan rabnaa dhaxda intuu noo gaarin meesha ramadaanka ku qoran intuu noo gaarin soo insha allah markaa koolada ku dhajinaysidna waxyar dhinaca cadaan kala qabo meesha midowga adi kalarka midowga le ha ku ekeysinin kaas hadhow waxaa laga yaabaa in yaroo kalar intuu koolada hoosteeda galo soo waxyar boos yar ugu binee maxaa la dhihi jiray dhinaca cadaanka kala qabo haddaa fahmaysaan meesha midowga leh ha ku reebin kalarka adiga already calaamaysatay leh ha ku reebin waxyar ka yara durji maxaa la dhihi jiray kula qabo dhinaca canvaska cadka kula qabo haddaa fahanteembo hadhow gadaalaa ka arkaysaan soo waka maxaa la dhihi jiray cadaankii iyo midowgii iyo gareygii kalarkii waa isku dardaraysaa waa isku korshishibeysaa xabad maxaa la dhihi jiray cadaanka mar walba oo dhexda ka gelinaya because gareyga iyo midowga way isku agdhow yihiin in yaro golden waan ku daray kuma badanin goldiga a little bit hal mar baan ku shibay dhexda markaan cabaar aan blacka garey kalaraha kale aan isku soo daray ayaa kan goldiga waxyar kaga daray insha allah
kan yariiska markaan sameynaa kii yariiska wakaa oo hadaaye sibirka ku yaalay cadaan baan soo mariyay soo kalarihii markaa isku darsatid aad yaarsatid waxa kulli inay diyaar ku ahaadaan inta kalarka iskugu darin because kalarka markaa saa iskugu dartirtid waxaa la rabaa inaad canvas ku shibtid si ay kalarka iskugu qasmin soo inkastoo kalarkii koro ahaa midowga u badnaa in yaroo cadaan ayaan ku shibay aan kor kaga shibay dhibacyo ah goldigana waan ku daray soo cadaanka iyo goldiga iyo isku soo saaraan ay beesha dhan gray bis ay kaga noqonin soo waka waa aragtaan dhinaca u ruuxaysa intay ka wada gaarayso meel walba afarta gees ay ka wada gaarayso hal meel leh u leexinin marba dhinac u leexi si kalarka dhan hal dhinac u kaaga daadanin waxaa la rabaa balance inay ahaatid kan since already kalarka uu fadhiyay waxaan dhahay hal mar leh gab ku si uu kalarka dhan hal mar u soo baxa uu iskugu qasmin marka aniga aan ku shubay because cabaar uu iga yaalay soo sidaa daraadeeda kalarkii dhan hal mar ku gadiyay waa u jeedaan bahalka baa ka qaadaysaa asagana sidii camal baa sameynaysaa insha Allah meesha Ramadaan ku qornaa waxa ka ma gaaray kooladaas way ku protect gareynaysaa ha ka walwalin soo sida waan ku sheegay hadaa rabta kalar kale kor waa kaga dari kartaa in yar dhibacyo ah laakiin waxa ku badinin ayu nooc kalarka rabta waa isticmaali kartaa black gray red adiga waxa jeceshahay blue hatta waa isticmaali kartaa maxaa la dhihi jiray purple adiga kalarka rabtid ayu nooc dooqaada garanaysaa aniga hadda gabara u sameynayay kani sida daraadeeda guriga greyga ku gold gray ma ahan laakiin iyada gurigeeda gold gray ah sida daraadeeda ayaa u sameynayay soo wakaasaasu ku soo baxay markaan aan maxaa la dhihi jiray aan ku soo wada dhameeyay kalarkii inta dhulka ka taala meesha singa kaaga daatay waxa sameyn kartaa inta gacanta ku soo xirtid ayaa baaquli misadii kala koobka adiga greyga ku isticmaashay hal kalar uu noqonayaa markay isku qasmaan soo aku shibinaysaa wax kala ku sameynaysaa soo markuu soo qalalo wakaat kooladii ayaan ka fujinaynaa maasha Allah si fiican ayuu igu soo baxay waan ku farxay inaan haday markaan aniga koolada aan ku dajino intaan kalarka ugu shibin ka hore inta in yaro cadaan aan ka reebay because meesha yaro cadaanka waa aragtaa aan ka reebay kalarkii uu soo yar gaaray qoraalkan iguma soo gaarin so that was good hada waxaan sameynayaa kalar midow baa soo qaadaya meeshii kalarka iga soo gaaray baa asagana midow ka dhigaya soo dib weyn uma baahno waa line up gareynaysaa kalarkaas ayaa ku kalar gareynaysaa waxaaga way ku soo baxayaan dhag maxaa la dhihi jiray hadda insha Allah videogan aad ka heshay baraawayso maxaa la dhihi jiray waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iido hadda igu cusub tahay waxaan iyo wax lamid jeceshahay inaad fiirsatid DIY subscribe ki saar hadda video ka heshay like hadii kale share sida si uu walaalaha u gaaro comment-ga hoos nagu idin furan yahay mar walba hal maalin ay u qaatay soo waxaan rajaynayaa Ramadaanka hadda intii mahasha maalin ay ka dhiman tahay inaad sameysatid hadda aragti inaad sameysatid soo qeyri barwaaqo idin rajaynayaa bye